haddii aad joogtid Hargeysa, Boosaaso, Muqdisho, Nairobi, Jigjiga ama dibaddaba ama wadamada kale oo qurbaha ah intaba haddaad joogtid waxaad u baahan tahay mar walba ood ganacsi ka shaqaynaysid inaad ganacsigaada ama adeegaada aad brandigiisa ama sumadiisa aad kor u qaado. Sumadda ganacsigaada waxay kaa caawin kartaa in shaygaa markii loo baahdo adiga aad noqotid qofka koowaad oo lasoo waco. maanta muuqaalka waxaan ku dul istaagi doonaa qodobkaas oo runtii aan isleeyahay qodob aad muhiim u ah weyn. Laba qof uu anfici karaa, qofkii business raba inuu abuuro ama ka shaqeeya ama haddaba leh, sidoo kale qofkii shaqaale ka ah yani businessada kala duwanna uu anfici karaa. Ardayga wax baranayana waxbarasho ay u noqonaysaa oo wax dheeriya uu fahmay ayay noqonaysaa. Koobkaas shaha soo qaado, aan isla dhamaystirno qodobkan insha Allah. Soo dhawaada. insha Allah bogga hadda ku cusub tahay fadlan follow ku dhufo oo subscribe ku dhufo, page-kana like garee. waxay caawin doontaa inay dhiirigeliso kanaalka, sidoo kalena dad badan ay gaadho fursadan ay kasii faa'iidaystaan insha Allah. marka ugu horeysa waxaan rabnaa dul istaagno intaynan sharuudaha aan u gelin siyaabaha aad raaci kartid, bal in horta isla fahanno maxaa laga wadaa brand yani ama sumad. Sumad waxaa laga wadaa waa fakarka guud oo dadku kaa haystaan ganacsigaada. tusaale ahaan markii la dhaho ganacsi hebel, haddaa maqasho hadda professor abyad, maxaa fikrad kugu soo dhacaya markaba? maybe inuu ganacsiga ka hadlaa kugu soo dhacaysa, inuu IT iyo teknolojiyadda waxa ka hadlaa kugu soo dhacaysa, inuu dakhli si loo sameeyo ka hadlaa kugu soo dhacaysa, inuu la taliya iyo waxa uu yahay ama la talinta ka shaqeeya kugu soo dhacaysa. waa sumad yani ay ugu garan kartid. saas oo kale business kasta wuxuu leeyahay sumad lagu barto. tusaale, shirkad markaa xasustid waxaa xasuusanaysaa kabaha magaalada. haddaa kaba u baahatid shirkad hebel aad, haddaa biyo u baahatid shirkad hebel aad, haddaa wax u baahatid service gaara ama adeeg gaara ama in dhismo lagu dhiso shirkad hebel aad, dhismaha ayadaa ku fiican. macnaha sidaas weeye. shirkad waxaa la rabaa wax qofka markaba kusoo dhacaya ayaa la rabaa. marka sumcadda ama brandiga waxa lagugu xasuusanayo marna wax fiican ay noqon karaan, marna wax xun ay noqon karaan. mar wax fiican ay noqon karaan oo dadku dee keenta inay soo aadaan, marna wax xun bay noqon karaanoo in adiga hadiiba lagu maqlaba lagaa cararo, la dhaho maxaa la yidhahdaa ma meeshaas ahaa aan ka cararno, macnaha ama qofkaas ahaa aan ka cararno. waa fahamtay soo ma? marka maanta waxaan arki doonaa sidee sumad fiican loo dhisaa oo bulshada sumcad loogu dhex samaysan karaa, especially businesskaada ama ganacsigaada iyo wixii aad ka shaqaysanaysa. qodobkaasaan ku dulsaagan. brandiga marka waa isla fahnay soo ma? waa dadka waxa ay kaa aaminsan yihiin, sida ay kaa fakerayaan, siday kuu qeexaan ama ganacsigaada u qeexaan. brandingna maxaynu dhihi karnaa waa waxa aad samaynaysid, tillaabooyinka, ficilada aad samaynaysid si aad u dhistid perceptionka dadku ay ka haystaan, fikradda dadku ay ka haystaan. ha noqoto logooyinka isticmaalaysid, kalarada isticmaalaysid, fariinta aad gudbinaysid, tayada adeegaada, qancinta macaamiishaada iyo wixii lamid. waxaan rajaynayaa inaan qodobkaa si fiican aynu isula fahno. iminka waxaan dul istaagaynaa qodobada aad raaci karta. marka muuqaalka soo koobayaa qodobadaan dul istaagi doonaa. qodobka ugu horeeya waxa weeye fahan suuqa maxalliga ah, suuqa localka ah. fahan meesha ka shaqaysanaysid yani fahan. haddaa Nairobi joogtid, suuqa Nairobi fahan. haddaa Jigjiga joogtid, suuqa Jigjiga fahan. haddaa Hargeysa joogtid, Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso, Baydhaba and so on. marka waxaad u baahan tahay suuqa inaad fahantid. maxaad ka fahmaysaa? kow, waxaa la rabaa inaad fahantid problemyo noocee ah horta bulshadaada haysta. maxaa xal u haysaa adiga u keeni kartaa? maxaa yaa kula tartamayo suuqa kugula jira, sidee u shaqeeyaan? waxaa la rabaa brandingkaada iyo qaabka sumaddaa dhisaysid inay baahidii suuqa ka jirtay ay la align garaysmato oo ay la dhismato, macnaha ayna iswaafaqaan baahidii suuqa ka jirtay iyo sumaddaa dhisaysay. tusaale ahaan hadda haddaan rocket science ka sheekayno ama spaceka la aadaya iyo cirka la aadaya aad caan ku noqotid, dee still waxba ku tari mayso, sababtoo ah baahidaas ma ka jirto meeshaas aad ka sharaxaysid. waayo dad waxyaabaha asaasiga aan haysan waxaas ulama imaan kartid. qodobka labaad, waxaad u baahan tahay inaad qeexdid maxaad rabtaa, tilmaam nooceeyaad rabtaa in lagugu barto. qor, bug iyo qalin soo qaado, tilmaam nooceeyaad rabtaa in lagugu barto. tusaale ahaan magacaadii, kalarada isticmaalaysay, loogada isticmaalaysay, qaabka dadka ula magacaabaysay, ma saaxiibtinimo qaab ula macaamishaa, ma professional qaab professional oo strict business rules raacaya ula maamushaa, ma qaab dhalinyarnimo ula macaamishaa, maxaa ula macaamishaa. waa inuu marka ay ahaato markaad isqeexaysid sida magacaada wixii lamid waa inuu noqdo wax
la xasuusan karo oo fudud oo dadku ay markaba fahmi karaan. Tusaale ahaan hadda anoo kale waxaan sameynay soo maa nasiya surface oo kale waa kasoo dalban kartid adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin la talinta marka iyo systemyo kala duwan. Marka tusaale ahaan anoo adeegaas oo kale nasiya surface la talinta kasoo dalban kartaa kana kasoo dalban kartaa oo wax la fahmi karo macnaha yaa u baahan ciddii markaa u baahan baa soo dalbanaysa dadko dhan uma wada baahnaa ma fahmaysa. Marka muhiimadda waxa weeye inuu sidaas oo kale simple u yahay iyo sida kale kambaniya badan oo nidaamka raaca jiraan. Qodobka saddexaad qiimaha uu ku fadhiyo brandigaadu muxuu qiimo uu ku fadhiyaa. Dadka qiimaha waxaa loola jeedaa war dadka maxay kuu dooranayaan maxaa kaga fiican tahay businessyada kale. Tusaale ahaan anigu waxaan ahay shirkadda ugu degdegsiyada badan xaafadaha adeegooda ee magaalada Boosaaso ku taala. Waxaan ahay shirkadda ugu jaban ee dhalinyaradu wax ka bartaan oo waxaa ka diyaarshaan. Waxaan ahay la talin la isku aamini karo oo loogu talagalay inay u shaqeyso ganacsiyada smallka ama surface kala duwan usoo bandhigta ama ganacsiyada yaryar. Marka waa waxaan sheegtay sumadayda. Tusaale ahaan hadda annaga sidoo kale maxaan u shaqeynaa inaanu nahay la taliye la aamini karo oo small business ama businessyada la dhisayo la shaqeysa ama la talinta ganacsiyada kala shaqeysa. Marka waa wax la garan karo waa qodob. Marka adiga maxaa dadku kugu baranayaan way toban wax lama dhisi karo hal shay baa la dhisi karaa laakiin way kuu fududaanaysaa. Marka mid kuu shaqeeya hadhow mid labaad waa dhisi kartaa. Marka muxuu xambaarsan yahay dadka maxaa kaga duwanta. Qodobka afaraad waxaad u baahan tahay in aad joogtayn samaysid. Joogtaynta waxaa loola jeedaa waxaadu inaysan isla khilaafin. Tusaale facebookgaada tiktokgaada youtubekaada whatsappkaada boosterada dhigaysid wax walba uniform inay noqdaan wax isku nooc ah isku qaab isku design isku si inaa meel walba u taagan tahay. Marka qofkii wuu kula qabsanayaa magac repetitionka loo baahan yahay inaad samaysid. Repetition waxaa la yidhahdaa waxa lagu soo celceliyo. Marka wax lagu soo celceliyo qofku marka dambe waxa u fududaanaysa in uu kula qabsado. Ma fahamtay xitaa hadduusan markaa surface-kaada u baahnayn ama product-kaada u baahnayn markuu wixii u baahdo adiga qofka koobaad uu ku soo xasuusanayo waa adiga. Qofka koobaad uu soo xasuusanayo waa adiga. Qodobka shanaad waxaad u baahan tahay inaad samaysatid sumcad. Sumcad maxaa loola jeedaa. Sumcad waxaa loola jeedaa war adiga waxa lagaa rabaa wixii itusu itaabsan inaad ka dhigtid. Tusaale ahaan inaad testimonial ka diyaarisid macaamiishaada. Waxaa loola jeedaa macaamiishii tusaale ahaan surface baa u qabatay adoo surface ku qabanaya iyo kuu mahad celinaya adoo wax noocaasa. Iyo waxaa isticmaali kartaa sidoo kale shaqo aad qabatay sidii markii hore ahayd markii la qabtayna sidii noqotay laba sawir baa kala qaadi kartaa laba video laba wax kadib ma garatay qofkii waraysiyadii markaa waraysiyadaas markii aad soo geliya khadka dad badan baa kugu soo jabay macnaha sumcaddii baa dhisanaysaa iyo aaminaadii ma faratay ama caddayntii saas aynu dhihi karnaa. waxaa kaloo samayn kartaa sawirro caadi ah shaqooyinada kala duwan qabanay sawirra ka qaado fiidiyoda ka qaado soo boosti kare taa waxay fududaynaya qofku inuusan kaa baqin oo isdheeniyo waxaan wax hadda yimid ama balaayadu oo kaa baqo haddii kale uu kaa baqaya ma garanaysa. tusaale ahaan waxaad caddayn kartaa haddii dadka u shaqaysay 300 qof baan u shaqeeyey 400 qof baan u shaqeeyey 100 qof baan u shaqeeyey ma garanaysaa saas oo kale. qodobka lixaad waxaad u baahan tahay suuqa aad joogtid ee targetka kuwa ama macaamiisha kuwa ah inaad feasible ka tahay oo shirkadaha ama businessyada ama ganacsiyada ka jira ee la yaqaan inaad ka mid tahay. tusaale facebook oo kale haddii loo baahdo facebookaada active yahay tiktokkaada waa inuu active yahay maartay outdoor baa jirta oo boorarkaada iyo waxyaabaha meelaha ka taagan waa inay active yihiin whatsappkaada waa inuu active yahay. waxaa la rabaa inaad active tahay maxaa rahdaa meesha kasoo mariskaada ay joogaan meesha macaamiishaadu ay joogaan inaad active ka tahay baa la rabaa oo aadan indhaha isku qabsan. toddobaad waxaad u baahan tahay inaad dhistid xiriir macmiil oo aad u fiican. tusaale ahaan see u dhisi kartaa arrinta kow inaad degdeg ugu jawaabtid ballanta qaada inaad markaba fulisid khaladaadka ka dhaca shirkadaada inaad dhahdo anaa maxaa naga galay aadan dhihin wixii adiga aad leedahay oo sharciyan adiga saxan lagaa rabo inaad saxdid xitaa wixii aadan lahayn inaad la fududeyso dhahdo walaala taas anagu shaqadayada tooskayd maaha laakiin waxaan kuu ogolnahay saa sidaan talooyinkan aan ku siin karnaa sidaan arrintan ku xallin kartaa oo dadka noocaada oo kale kiisaskan ku dhacaa saanaysan u xallin kartaa. qodobka xiga inaad sidoo kale macaamiishii aad mar walba ay u fududeyso inay soo gaari karaan oo lambar u samaysid loogu talagalay
lambar loogu talagalay oo u samaysan tusaale ahaan haddaad trainada u baahan tahay lambar baa jira loogu talagalay wixii trainina lagala soo xiriiro wixii la talina lagala soo xiriiro marka adaarta online training ku dhigatid lambarkaas soo wacaysaa macnaha lambarkaas wey lambar kale adood soo wacdi waa kiis kale laakiin lambarkaas waa day to day qof baa mushaar ku qaataba inuu ka shaqeeyo saasoo kale marka adigna inaad samaysid baa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa macaamiishaada koowaad inaad aad ugu dadaashad intii tabartaa ah macaamiil faraxsan waxay keenayaan inay magacaada meelo badan ku sheergareeyaan oo dalkii iyo dibaddiisa intaba ah qodobka ugu dambeeya waa ku celcelin brandingku waxay u dhigantaa in wax lagu celceliyo shayga marka ku celiso sidoo dhahday maanta anna waxaan nahay shirkadda biyaha magaalada ugu fiican oo biyaha ayadu ugu quality fiican yihiin oo biyaheedu maaragtay aysan saa ahayn oo sidaas markaa ku celceliso meel walba geysid qualitygaada sumcadaada maalin walba la dhigo qofkan shan sano marka waxaa lagu shubayo marka dambe wuu aaminayaa waxa u baahda wuxuu dhahay shirkadda hebel moodoon surface u baahda surface hebel moodoon cid hebel moodoon markaa ku celcelintu waa qodobka xiga ma garanaysa marka waxaa inoogu xiga in la dhiso intaasaan ku ekeenana 8 tilaabo inaad dhistid marka branding ama maaragtay businesskaada sumadiisa inaad dhistid ma aha wax qaali ah laakiin waa wax istaraatiijiyad u baahan qofka isagoo meesha iska fadhiya oo wax shaqo ah qabanayn baa haddana uusan branding shirkadiisa ka shaqaynayn 8 saac meel fadhiya 3 saac kamid ah inuu shaqeeyay inta kale inuu iska fadhiya laga yaabaa uusan wax badan qaban haddana branding shirkadiisa muusan qaban kama shaqayn waxba kuma darin dhibaatadaas marka jirta marka waxaa la rabaa inaad waxaan ka shaqaysid oo si ku talagala aad uga shaqaysid ayaa la doonaya oo aad joogtaysid shaqadan si istaraatiijigana shaqada u qabatid oo shaqo badan inaad qabatid waxaa ka macno fiican shaqadaasi istaraatiijiyad leh inaad u qabatid mar walbana inaad ku dadaashid aaminaada joogtaynta iyo qiimaha aad qabanaysid shaqadaadu yani shaqadaadu inay macnihii ay noqoto shaqo qiimaheedu uu qofku habi ku noqonayo qiimaha lacagta oo qiimaha waxa la siinayo waa relative ma fahanta waxay ku xiran tahay wax $10 wax $100 wax kuna way jiraan qofku asay ku xiran tahay wuxuu inuu doorto marka arrintaas marka waa sidaas waxaa rajeynayaa inaan muuqaalkaas uu ku noqday mid informative oo si fiican aad u fahantay oo almost xogtii oo dhan aad fahantay marka intaasaan kusoo gabagabeynayna insha allah haddii aad u baahatid in istaraatiijiyad caadi ah lagu dhiso oo branding ah waxyaabaha aan qabanay ka mid tahay haddaad u baahan tahay inaad waxyaabo kaloo dheeri ah oo businesska iyo xirfadaha iyo waxyaala madaarta inaad baratidna iyadana sidoo kale waad ka faa'iidi kartaa contentyadana mar walba qaybta hoose ayaan dhignaa laakiin muuqaalkan wuxuu ahaa mid aan si guud idinkugu talagalay inaad dhammaantiin ka wada faa'iidaysataan oo xogtii almost faham guud baan rajeynayaa inaad ka qaadatay muuqaalkan wuxuu ahaa mid informative السلام عليكم ورحمة الله وبركاته